dhalinyarada guusha soo raacay degmada Buurtile ayaa waxay kulamo soo dhaweyn u sameeyeen qurbajoogta u dhalatay degmada Buurtile iyo shirkadaha ka shaqeeya degmada Buurtile kulanka inta uu soconayay waxaa la isla meeldhigay arrimo badan iyadoo lagu amaanay dhalinyarada guusha soo raac waxqabadkii weynaa ee u sameeyeen degmada Buurtile sidoo kalena dhalinyarada guusha soo raac ayaa dhiirigeliyay shirkadaha ka shaqeeya iyo mas'uuliyiinta uga timid dalka dibadiisa ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada guusha soo raac Xaafi Cabdirasaaq Axmed wuxuuna ka warbixiyay waxa uu kulankan ku saabsanaa waxaan u soo qaban qaabilnay xalfadan inaan ku dhiirigelino dad shakhsiyaad ah ama shirkado halkan jooga oo aan isniri runtii fursadihii la soo maray ee dhinaca abaaraha lahaa ama dhinaca horumarinta lahaa ama haatan waxay Buurtile u baahan tahay wax qabad weyn bay ka geysteen xaawo matooto iyo maama Sahro iyo eedo qofta la yiraaho Zainab iyo ninka la yiraaho Ibrahim Cabdinuur Dabaray oo runtii afartaas shakhsi ay qayb lixaad ka qaateen dhiraynta iyo qurxinta iyo nadaafadda haatan degmada ka wadnay iyo dhowr shirkadood oo ugu horeysa shirkadda Golis Samtel Amal Banki Salaam Banki iyo shirkadda Nabka oo xooga korontada ayaga waxaan ugu talagalay inaan meesha shahaado sharaf ku guddoonsiino dhanka kale maamulaha dugsiga sare ee Mutada Sheekh Cabdikaafi Maxamed Dirir iyo gudoomiyaha horumarinta degmada Buurtile Muxuudiin Maxamed Xaashi Dhaweyle iyo Jaamac Ashkar Cabdulle oo ku hadlayay afka shirkadaha ka howlgala degmada Buurtile ayaa booriyay dhalinyarada guusha soo raac runtii intii ay jireen ururkan guusha soo raac waxyaalo badan oo ay sheegeen way qabteen waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa talada oo hadda مع حافظي وعي قليل نافضوا ونرش بالعالم هذا حافظي توعي قليل أيضا شي مدينة مال لقان أما أوريان بكينين أرنتا سنة وحي قبتين بكم التاي وعن آدي أرغفع صنعي ونبه الولين النادى اللي انت قوش صراع شغل وانا أكسن أو أي قبتين وكرتيدة يجيسي نمالا له وأنا أقول شلافوين بدن يطرحامات بدن يقضحين بدن أي كتيران يعني دبر عليك أيون دبر عليكين إن يهوشا فليان ولين أتاجيهم ويكون ماتسيهم أنا ولا ضدك يجوا مرة كشغين شري أول أنا هاي ضدك لفتي جودا مركي يهوشا للبلاد يعني كلاور قبي وأكون تاجنا هاي وأنا كل شغيننا شعب غير Buurtile أي أموجيان باهي أو قلان بنك كسان أنا رتاع بدل كذا وحنا ودقني ما دام أنت بنك على فري قبل لا وياها يرمود حتى بوصاص HQ Buurtile وحنا تاع يرمود كحرومها بنك كسان أنت أمريكا أنا وحنا بدل كذا ودقني دقمة Buurtile عق خرشات ولغور ما يدقمة وكم ذا بنان HQ إن دقمة الله قندية بالكسر الله صدره. sidoo kale marwaxaabo matooto oo kamid ah qurbajoogta u dhalatay degmada Buurtile ayaa sheegtay in ay ku faraxsan tahay soo dhaweynta ay u sameeyeen dhalinyarada guusha soo raac kuna tilmaantay dhalinyarada guusha soo raac SYL waxaan ku faraxsanahay dhalinyaro aan ku matali karo SYL inay noo soo kacday bil xaqiiqdi SYL dadkii dalka xoreeyay SYL bay ahaayeen Buurtile waxa ka abuurmay dhalinyaro guusha soo raac oo aan ku matali karo SYL waxa farxad kale ah hormayskan gabdhii saaxiibada ka soo qaaday waxay ahayd Buurtile waxay tahay inaan dadka tuso marka waxaan moodaa wanaaga ay sameeyeen iyo soo dhaweynta iyo maaragtay ballanqaadkaygiiba inay iskaashanayaan marka qof nasiib badan baan horta halka ka ah ugu dambeyntii xildhibaanada Cabdirasaaq Faarax oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Buurtile oo soo afmeeray munaasabadan ayaa sheegay inay la shaqeynayaan ka maamulahan dhalinyarada guusha soo raac kaasoo ay ka mid dhaliyeen waxqabadyadii iyo horumaradii ay ka wadeen degmada biliya ay bislaayeen iyagoo awoodid inay ka duulayaan hadal hayskii ama waraaqii madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Cali Gaasi ahaa isku tashiga inta ay munaasabadu socotay dhalinyarada guusha soo raac ayaa shahaado sharaf guddoonsiiyay haldoorka degmada Buurtile Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtile